وزارة Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa tagay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud xilli xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladda federaalka iyo madaxda Galmudug iyo ahlu sunna ay wali taagan tahay. dhawaana waxa ay markii uu halkaasi isaga baxay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf hadaba wasaaraha iyo wafdigiisa iyo qaabkii loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb waxa la socday wariyahayga magaalada Muqdisho Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon oo Dhuusamareeb ku sugan warkan inooga soo diray goordhaweyd. wafdigan oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. soo dhaweynta Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ka qayb qaatay madaxa xukuumadda ee maamulka Galmudug, wasiirro, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. soo dhaweynta kadib warbaahinta waxa la hadlay qaar ka mid ah bulshadii ka qayb qaadanaysa soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha. الرحمن الرحيم maanta halkan waxa u joognaa inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya maanta waxaan joognaa magaalada Dhuusamareeb ee magaalada madaxda Galmudug maanta alxamdulillah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan intaas oo saacadood u taagnayn inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraheena waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow waa magaaladaadi waa deegaankaagi oo ognahay inaad Galmudug ka soo jeedid hadda waxaan ku leenahay gacmo furan farxad iyo wanaag iyo baashaal ku soo dhawow magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Cali aad ugu faraxsanahay inaan maanta ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee degmada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha waddanka mudane Xasan Cali Khayre waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow waxaan leenahay ku soo dhawow magaalo laga jecel waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraheena dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare waxaan ku leeyahay soo dhawow degmadaadii dalkaagii dadkaagii anaga garabkaaga ayaynu taaganahay hadaynu arday wax soo baratay bari waxaan jecelnahay booska maanta taaganahay in adiga taaginta maanta anaga istaagno waxaan ku leeyahay madaxweyne soo dhawow dalku waa dalkaagii dadku waa dadkaagii ambalyan ku leeyahay xilkaadina isna Allah kula garab garo kan iskugu nimid inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraheena dalka Soomaaliya haddii aan dhalinyaranahay waxaan ku faraxsanahay in aan soo dhaweyno waxaan leenahay mudane Xasan Cali Khayre soo dhawow waxaan halka kugu soo dhaweyno waa dhalinyaradaadii waa dadkaadii waa deegaankaadii reer Galmudug ayagoo sadaacsan waxay ku leeyihiin hambali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halka waxa ka salaamay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay maanta isaga u taagan inaan si nabad iyo nolol iyo farxad ku dheehantaan soo dhaweeyay intaas kadib ra'iisul wasaaraha waxa loo galbiyay hooga uu ka degayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud intuu ra'iisul wasaaraha ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb waxa uu la kulmi doonaa qaar ka mid ah madaxda maamulka Galmudug Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon raadiyaha telefishinka SBC Dhuusamareeb.